الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaanu beriyahan la soconaa oo aynu ognahay waxa ka dhacaya waddanka siiba aw bari iyo boorba ka dhacaya maxaa keenay in caruur arday ah oo imtixaankoodii u socdo la laayo waxa keenay waxa weeye jileeca ummaddeena waxa keenay waxa weeye ummaddeennii lama taaba qaadi karto lama tis qaadi karto ummadihii kale Soomaaliyeed waxa ka dhacaya laandka weynu ognahay iyo waxay nagu hayaan iyo dhibaatada ay nagu sameeyeen rag baa xidhan rag baa xaq darro lagu xidhay fasax intii u tegay laguna haystaa jeelasha dembi ay galeen oo lagu ciqaabi karaan bayaan waxaan u sheegayaa nimanka dadka iska qabsanaya iska xidhaya adeer waqtigii la isxidhayo waa la dhaafay haddii ninkaa odayga degdeg loo sii day waayo haddii faraha laga qaadi waayo annagu maxkamad baanu diyaarinay kana gaban mayno nimanka ka galaya gafkiina waxa ka shaqeeya Soomaaliland madaxda ka ah halkanina ka haysta dhalashada maxkamad baanu la soo joogsanay waxay dadka ku hayaan markay Soomaaliland joogaan waanu la galaynaa maxkamad looyaraan u samaysanaynaa waxay ka dheefaan ayay leeyihiin haddii ninkii u dhashay awdal ee safar ku tegay waddanka la xidhayo kii u dhashay Hargeysa ama u dhashay Burcana kii xidhayayuu yahay wallaahi inaan la wada joogin meelba war waqtigiisiyaad baraad ka cabanaysa adaa ka daran maanta rabbi adaa ka liita adaa ka xun qabyaalad xunina ku googoysay haddaad ka joojin weydo ummaddan galbeedka waxaad ku samaynaysaa adeer xabad baa la iskula tegi doonaa xabad baa la iskula tegi doonaa taa maskaxdaada gasho waayo sida aad dadka u qabsanayso dee kugu dayn mayno kuguna eegi mayno waanu naqaanaa sida xabad loo qaato waanu naqaanaa sida loo dagaalamo waanu naqaanaa nabad xumaanna waanu naqaanaa ninkaa degdeg waa in loo sii daayay haddii loo sii dayn waayo ciqaabta ka timaada adaa garabka saaran doona